wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiisha hay'adaha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa aqalka dowladda hoose xamar ku yeeshay kulan dhowr saacadood qaatay oo looga hadlayay amniga caasimadda iyo sidii loo dardargelin lahaa. kulankani ayaa intuu socday waxa aad loogu amaanay dadaalada ay ciidamada amniga ugu jiraan sugidda amniga iyo badbaadinta shacabka iyagoo ka hortagay falal argagixisnimo. sidoo kale mas'uuliyiintan iyo saraakiisha goobta ku sugneed ayaa ugu mahadceliyay shacabka sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyeen ciidamada nabadgelyada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoog saaray bilihii la soo dhaafay arrimaha amniga. muddadii 4 bilood ee maamulka gobolka aan joognayna annaga waxaan diiradda saarnay sugidda amniga caasimadda si istiraatiijiyad oo ka duwan siyaabihii hore. waxaan garowsanay ahmiyadda bulshada inay kaalin ka qaataan amniga sugidiisa. waxaan sameynay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn dhab ah hay'adaha amniga oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayo oo ilaa heer gobol heer degmo ilaa iyo heer wax aan gaarsiinay. sidoo kale waxaan dhaqan gelinay barnaamijkii dariseynta oo sahlay isagana in bulshada iyo maamulada degmooyinka isku xirmaan. intaas marnaba waxaan la iloobi karin doorka hogaamineed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo ahmiyad gaar ah siiyay sugidda amniga. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa golaha wasiirada oo ayagana dareemay in ay rabaan inay kaalin ka qaataan sugidda amniga oo aysan wasaaradooda kaliya ku ekaanin oo ay shacabka dhex galaan bacdama dowladda shacabka tahay maamulka gobolkan shacabka yahay in shacabka lala qaybsado sugidda amniga. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.